السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي والله غالي أحمل باجوكتين سو دوادا ومركل فيديو كلا عصب أصحابتي شرفت لي وقيمة قدرنتي جمودن وحيدير جينا يا ميل باجوكتين قيري بش برواقو إنا كنولاتين ما أنتو حنو وضع قصو إيلا سو وذاكتي جبر صوماليات ولا شينا جبردان أبهيت أيانين كتري إيدو شريتو بنجرة وعرور وحبا أنك لأوجين أبهيت وحود هنين كما ولالكا waxba kaama halaynayo ninka wanaagsan oo maanta gursan lahayd ma jiro iyo markii lagu daray gabadha sidoo la dhaqmay sidoo yeelay iyo guur inuu walaaltinimo galo iyo in kale guur walaaltinimo galo qisadana idin ka hordhicin soo dhawaad walaalahayga qaaliga ah inta qisadan ugu gudagalin waxaa jiro laba gabdhood oo duco idinkaga baahan ilaahay ajir iyo xasanad ha idinka siiyo soo duceeyo gabadhan waxay tiri waxa la dhahaa Naciima Cabdi waxay tiri abaayo aaba iigu soo duceeyo salaada ma dukado waana yani waa qof weyn igu soo duceeya idinkoo mahadsan marka adeerkeen ilaahay horta soo hanuuniyo ilaahay ku soo hanuuniyo salaad tubta toosan ilaahay ku dubo salaada iyo diinta iyo rabbi dhawaashan ilaahay ku jeclaysiyo soo duceeya adeerkeen gabadhan waxa la dhahaa Naciima Badri waxay tiri Naciima qoraalkeedu dheer yahay waxay tiri salaamu calaykum waxaan codsanayaa adiga iyo asxaabtaada in aad i soo duceysaan saaid ayaan u murugeysanahay waliba saaid in uu ilaahay faraj ii furo aan ku farxo insha Allah u soo duceey inuu ilaahay faraj khayr qabo ku farxdo inuu ilaahay u furo walwalka iyo walbahaarka ilaahay ka dulqaado haddana waxaan ku dadkaleena qisadeeni laakiin marka hore fadlan subscribe isaar fiideo dadku cajibi lay qurux badan isaar in si share garay hadda ay awoodid aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdal salaatu wassalaam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة وهذا ولا له خالقه gabadhan waxay tiri waxaan ka dhashay famil danyar waxaan ku dhashay oo ku soo koray Soomaaliya waxa ay soo korsaday waalidiinteedii i dhalay waxay tiri aabahay wuxuu ahaa macallin dugsi waxaan ahayn qoys iska danyar aabaheen wuxuu soo shaqay jiray ama soo heli jiray maalintii qutul maalmeedka waxaan ahayn qoys danyar ama qoys faqiir waxay dhahdeen waxaan ahayn 9 caruur marka laga reebo inta naga dhimatay ma sha Allah ilaahay idin barakeeyo waxaan ku joognay 9 caruur waxay tiri aabahay gabdhaha uma ogoleen inay banaanka aadaan xataa inay iskool aadaan annaga waxaan dhiganaa dugsiga oo xaafadda ku dhex yaalo dugsiga markaan ka soo baxno guriga waxaan u soo aadnaa si toos guriga iyo dugsiga meelaan ahayn ma tagno wiilashu aabo ogolaa jir inay iskool dhigtaan oo kaliya waxay tiri markii aan soo weynaaday 15 sano aan gaaray quraankaygii aan dhameeyay oo aan soo qaan gaaray oo gabar yani qaangaar aan noqday hooyaday ayaa igu tiri maalin maalmaha kamid ma og tahay in lagu soo doontay inuu ku soo doontay wiilka adeerka hebel ani markaa waxay tiri waa naxay aad iyo aad uga naxay maxaa yeelay waa yarahay waxyaabaas kuma fikireynin markay hooyo ii sheegtay waa ka naxay bas marka waxay tiri hooyo ogow in lagu soo doontay kadib haddana aabba haddana ila hadlay wuxuu dhahay aabbo hooyada arrin ku sheegtay ani marka waxaan islahay aabbaha arrinta uu ku wado waxaa laga yaabaa inay tan hooyo ka duwan tahay marka adiga ka hor dhicin bal ka sug wuxuu ku sheegi doono dabcan guur uma soo jeed gabadhan marka waxay tiri aabbo wuxuu dhahay aabbo waxa ku soo doontay wiilka adeerka hebel waa nin wanaagsan aniga gabadheedii yaa tahay meel xun kuma quuro nin xun kulama rabo mustaqbal wanaagsan kula jeclahay waxa taa gabadheeda aan jeclahay hebelna waa in adeerka waxba kaama halaynayo waa walaalka nin shisheeye inta guursan lahayd kan ayaa kaaga fiican Soomaalina waxay hore u tiri wax la yaqaan guurso wax la yaqaan aad dhashide marka intaad guursan lahayd dad aan la aqoonin ninkaana kaaga wanaagsan aabbo iga yeel ani marka waxay dhahday aabahay waxaan arkin ku faraxsan yahay in ku qanacsan yahay haddana waxaan ogahay aabahay maadaama aniga wali caruur ahay waxaan ogahay inuusan meel xun ugu tuureynin aniga maanta ma ihii dhahday qof aqligeed u kala go'o waxaan ahay 15 jir
guri waxaas waxba kama aqaano marka aan waxaan ku fikiray aabahay inay tahay meesha ii wado meel iga hubo iyo meel uu ku kalsoon yahay iyo meel aan yani cabsi ay yani dhibaato aysan iga imaaneen marka waxay dhahday way hayaan dhahay waxaan fiirnay aabahay farxadiisa sidoo u faraxsan yahay tiisaan u yeelay aniga waxay dhahday aabahay ima qasbin ma idhihin ilaa ninkan guurso sidoo kale intana ra'yi ima weydiinin ninku uu keenay wuxuu leeyahay ninkan waa walaalka ninkaaga fiican ma jiro ninkan guurso anigana waa ka aqbalay marka waxay dhahday kadib waa la imehriyay waxa ii yimid adeerkay oo magaalada Muqdisho ka yimid magaalada Muqdisho markuu ka yimid uu soo waday wuxuu ii keenay gurigii wiilka hooyadiis ee deganeed oo sodohday ah marka waxay dhahday guri ayaa la ii sharaxay waa la ii soo dhaweeyay qol ayaa la ii firaashay alaab qurux badan la ii dhigay marka waxay tiri wiilka la igu meheriyay oo adeerkay uu dhalay dalka ma uusan joogin waxaanu isku ogeyn oo intaan aniga familkayga kasoo tagin oo igu dhahay waxaa imaan doonaa hal bil ka bacdi markii la isoo waday oo guriga familkiisa la keenay bishii markay dhamaatay wuxuu dhahay aniga Soomaaliya ma soo aadi karin way igu adag tahay inaan imaado marka alaabta la gaday jiifka iyo waxyaabahaas hal iska gado waxaa jirta habarirtay oo degan Uganda waana habarir fiican oo aad u fiican marka iyada la hadlayaa marka aniga Uganda kuugu imaanaya xagga lagu geynayaa iyada guri noo diyaarinayso marka saas u ogow aniga waxaan dheetir waayahay marka waxay dhahday aniga familkan la noolay waxba dhibaato kuma qabin waxay dhahday marka aniga waligiis hal maalin $50 oo gooni ah ima soo dirin familkiisu u biili jiray biilkaas markuu soo dhaco waxa la iga siiyaa $10 aniga marka waxay tiri maadaama wali aan yarahay $10 wuxuu ilayahay wax weyn waa ku faraxsanahay noloshaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka waxay tiri waa soo baxnay aniga iyo hooyadiis waxaan soo aadnay dhankaasi Afrika waxay tiri diyaarad ma soo raacin waxay dhahday baabuur noo soo dhiibay ama noo sii dhiibay ilaa aan ka tagno dalkii aan soconay markii aan tagnay oo 11 maalmood dadka aan ku sii jirnay oo wadanka aan tagnay oo habartiina soo dhaweysay oo muddo aan joognay oo wiilkii aniga ii qabay ee dhahday marba muddo uu qabsanayo muddadii markay dhamaatay muddo kale uu qabsanayo hooyadiis waxay dhahday aniga dana iga dhacdo aniga waa laabanaya dalkii aan ku laabanaya imow xaaskaaga oo imow muxuu ahay alaabna waa idin taalaa gurina waa kana waxba ha isjudeynin anigana waxay igu dhahday eedaday waa baxaya waxba kaama halaabayo habartaa la sii joogaysaa oo aniga walaashay ah ninkaagana ku imaanaya marka meeshaada joog habartii marka waxay i weydiisay inaan banaanka dago inaan guriga la dago iyada waxay tiri adiga jeceshaan ku yeela ama banaanka dag oo guriga lagu soo raadiyo ama gurigaygan qol lagaaga firaasho marka aniga waxay dhahday familka ani aan ka dhashay oo ree aabahay iyo ree abtigayba qurbo ma aadaan dalka kama baxaan waxay dhahday aniga meesha qof aan ka aqaan ma jirto qof aan weheshanaay oo ayaga aan ahayn ma jirto albaab aan garaacay ma jirto marka wadankina xoogaa si fiican ulama qabsanin afkiisina ma aqaan waana yarahay marka waxay dhahday waxaan dhahay habriday aniga adigan kula dagaa banaanka ma rabo marka waxay tiri sidii ayaan ula dagay hooyadiis waxay tiri aniga ifasax waa baxa waa isla xiriireynaa waana ku soo laabanayaa habrirtaan la sii joog waxaan iri waayahay marka waxay dhahday anigu cidla fara badan dareemayo oo aad iyo aad u murugeysan ayaa meesha iska joogay waxay dhahday habrirta aan la joogay waxay aad qof wanaagsan waxay dhahday marka aniga waxaan ahay qof xoog furan oo reerka guriga hawshiisa ka saacido oo dharkaas dhinac ka dhaqdo oo cuntada kariso oo guriga hagaajiso laakiin waxay tiri waxyaabahaas oo dhan markaan dhameeyo qolkeygii cidlad ahay aan ku laabtaa aniga oo keligay ah meeshaasaan iskaga murugoodaa meeshaasaan ku fikiraa waxay dhahday wiilkii ii qabay ima soo wicin waxaa iigu dambeysay maalintii hooyadiis ee iga tagtay maalintaas ayaa iigu dambeysay waxay dhahday waa wacaa igama qabanayo SMS aan u diraa ma iga soo jawaabayo wuuna arkaa qadku ku jiraa online waayo waa u jeedaa mana ila soo xariirayo
hooyadiis way soo wacdaa way canaanataa waxay leedahay naag weyn iska dhig ninkaaga soo jiido muxuu ahay qof caqli la iska dhig waxyaabahaas ay dhahdaa waxaan dareemayay cidla fara badan murugo fara badan guriga kaligayaan ku ahay ninkii aan u imid dalkan madaxiisana telefoon igama qabanayo ilama soo xiriirayo waxaan sameeyana ma aqaan laakiin waxay dhahdaa alxamdulilah waxaan ahay qof mar walba ilaahay u dhow oo mar walba markaan murugo dareemo ilaahay xaggiisa uu cararo oo ilaahay u sacabo hoorsado oo ilaahay bariso qalbigana ilaahay uu ii dajiyaa markasto laakiin waxay dhahday wiilkii la igu daray hadalkiisii waa la waayay telefoonadiisii waa xirtay muddo 6 bilood ah qof meel ku sheegi jirtay ma lahayn qof meel ku sheegtay muddo 6 bilood ah ma jirin dadkoo dhan way isweydiiyeen familkii oo dhan way raadiyeen cidayda familka ani aan ka dhashay iyo familkiisii dadkii oo dhan wada ogaadeen ninkii in la la'yahay aniga waxay tiri murugadii way ugu fara badatay maxaa yeelay aniga qurbaan joogaa waana yarahay dartiisana meeshaan u imid madaxayga nuu haystaa ninkayga nuu yahay wax dhaqasho ah ama wax xiriir wanaagsan ah oo aan ka haystana ma jirto marka waxay tiri habeenkii ma seexdo cuntada ma cuno muruga idishay dhafara idilay walbahaara idilay marka waxay dhahday habeenada kamid ah ana hurdada iga tagtay oo iska murugaysan markay ahayd saacada 8 saac habeenimo waa ka kacay anuu dabcan soo jeed meeshaan fadhiyaan ka kacay waa soo weysaystay 2 ragco oo sunno ah ayaan dukaday ilaahay ayaan bariyay si qalbi ah oo niyad ah ayaan ilaahay u toogay waxay dhahday marka meeshii ayaan ku hurday anigoo is ogeyn meeshii aan ku hurday waxaan ka kacay meeshii markii la aqimaayay salaada subaxaan dukaday oo ilaahay aan iska baryay subaxii 3 saac subaxnimo markay ahayd waxa ay soo wacday hooyaday oo ninkii habaarayso oo qaylinayso oo ku kacsan tahay ayaa soo wacday waxay tiri ninkii wuu ku soo furay horta ducadeedii ee baryadii xalay iyo salaadii 2 ragco ay dukatay ilaahay kuma qadin gabadhan qofkan xaqiiqadiisii waa soo baxday marka waxay dhahday xataa aabahay lama soo hadlin wuxuu la soo hadlay adeerkiis wuxuuna dhahay way iga furan tahay ma rabo maalina ma rabo habeenna ma rabo Soomaaliya ku laabato lacagteeda tikidkan u soo diraa markii la weydiiyay sababta maxay tahayne wuxuu dhahay sababta yaan la weydiinin anigana waxay dhahday 3 sano aan sugaayay 3 sano meeshaas u joogay waxay dhahday 3 sano hadaan wax kala qabsan lahay maanta waxay ii ahaleed faa'iido hadaan wax iska bar lahay hadaan si kale u danaysa lahay marka waxay tiri 3 sano aan asaga u lagu osanay ugu dambeyntii wuxuu dhahay aniga habeenna ma rabo maalina ma rabo Soomaaliya ku laabato lacagteeda tikidkan u soo diraa sababta aan ku furaynay yaa la weydiinin marka waxay tiri 3 sano oo cumrigayga kamid ah aan meeshaas ku qasaaray sababta ugu furaynay ma uusan sheegin marka hooy aabo waxay dhaheen ducadeena hadaa rabtid soo laabo anigana waxay dhahday waxaan ahay garoob gabar yar ah niyada ka jaban qurba la keenay lagu furay xaalkaygan ilaahay uu ogyahay marka habaryartii aan la joogay oo asaga habartiis ahayd oo aad isku fahanay oo qof wanaagsan ahayd waxay tiri hooy aabo aniga kaala hadlaayo adigana aniga ka mas'uul ah wax iska baro meeshaada joog waxbana kaama halaabayaan aniga ayaana garabkaaga ah marka waxay tiri hooy aabo way igala hadashay waxay tiri gabadhan waxba kama halaabayaan aniga ila joogaysaa waxay iska baranaysaa mustaqbal wanaagsan ay leedahay heer inay gaartay rabtaa Soomaaliya hadda u soo laabatane wax ay idin qabanaysa malahan iska daayay gabadhan meesheeda ha joogto wax barato marka habareertii ayaa wax igala hadashay hooyada iyo aabahay sidii ayeen igu ogolaadeen meesha inaan sii joogo marka waxay tiri bis ani marka waxay tiri sidii aan meesha ku joogay kadib waxa Canada ka yimid habareertii aan la joogay walaalkeed wuxuu weydiiyay gabadhan yaa waaye anigu weydiiyay gabadhan yaa waaye marka waxay tiri habareertii waxay uga sheekaysay nolosheedii sida meeshaan ku imid inuu nin keenay oo inuu nin meesha igu furay iyo xaaladeedii sida loo xumeeyay waxa uga sheekaysay habareertii marka wuxuu dhahay anigu waa necbahay wuuna ka xanaaqay ka xumaaday wuxuu dhahay waxaan necbahay gabdhaha in la xumeeyo gabdhaha in saasoo kale loo galo marka wuxuu yiri anaa ku dhoofinayo waalidkan aniga wax u qabanayo ee meeshaada joog oo wax baro Soomaaliyana ha ku laabanin aniga waxay ahayd mid kaliya aan ku fakirayay inaan waalidkay wax u qabto
oo waalidkay aan wax taro maxaa yeelay noloshoodan ogahay iyo meeshii aan uga soo tagay wuxuu dhahay iga ballanqaad inaad wax baranaysid oo aad noqonaysid gabar wax baratay hooyada iyo aabahan adiga wadanka soo kaxayn doontid mustaqbalka insha Allah saas markuu dhahay waa ku farxay yacni waxayna dareentay mustaqbal kale oo wanaagsan inuu soo ifaayo mar labaad marka waxay dhahday Uganda sida u joogaa waxa ka soo wareegatay ama aan joogaa ilaa hadda 7 sano wuxuu ii qabtayna ma jirto qof bila aadan ah wax ii qabatayna ma jirto qof hal maalin $50 ii soo dirtayna ma jirto marka taasna waxay ku cadeynay habarirta ila joogtay walaalkeedii hadana ballanqaad u fidiyay inuusan waxba u qabanin oo hadalkiisa uu noqday hal bacaad lagu lisay meeshan uga dhaqaajiyay waxban uusan u tarin marka waxay dhahday qof aniga wax ii tartay ama $50 hal maalin isiisay ma jirto aniga waxay tir ilaahay ayaa meesha igu quudiyo ilaahay ayaa meesha igu haayo ninkiina ballantii qaadayna asna hortiisa u socday jidkiisu ku dhacay waxaan jecelahay hooyaday iyo aabahay waxay tir wax ma haystaan aabahay awal wuxuu ahay macallin dugsi hadan dugsigu iska daayay waxbana ma haystaan anigana waxaan jeclaa waligay hooyaday iyo aabahay inaan wax ku taro ma aha inay ayaga wax igu taraan oo ani dabcan waxay ka wada anigoo weyn ma ahan inay ibiilaan oo had dib aan ugu soo laabto gabadha horta aabaheed ninka markuu siiyay wuxuu dhahay aan sheekada dib ugu laabano wuxuu dhahay waa in adeerka waxba ka mahaleynayo aniga ka hubo intaad guursan lahayd nin islaameed oo shisheeye asaga kaaga wanaagsan waa walaalka waxba ka mahaleynayo horta guur walaaltinimo iyo in adeernimo horta ma galo wax la isku qaraabo kiilo ama la isku dhaqaaleeyo ama la isku roonaado guur ma ahan gabadhaada markaa nin siinaysid waxa fiican inaa ninka muxuu ay xaqeed ameel ka saari kartid hadduu xumeeyeen aad xaqeed uga soo dhici kartid intaan xumaanta la gaarin gabadhan inay yacni dad leedahay oo dhabar ay ku tiirsan tahay oo aan la xumey karin aad tustid ma aha gabadhaada horta si fudud marka hore inaad ninku siisid mana ahan inuu haddana wadan shisheey inuu geeyo haddana meeshaas uu ku furay gabadhan iyadoo yar inta wadankeeda uu ka kaxeeyay uu qurbo geeyay uu qurbihii uu ku furay waana aabaheedna wuxuu dhahayay waa walaalka waxba ka mahaleynayo marka in adeerkeed wax uu qabtay malahan inuu waqti badan ka lumiyay inuu dayacay inuu qurbo geeyay ma ahane marka gabadhan walaasheen ah waxay leedahay waxaa jiro waxay nagarta hadda talo waxaa jira nin kale ama wiil kale oo israbaan Soomaaliya joogo marka waxay tiri talada aan hadda ka rabo waxay tahay horta wiilka walaalkay kadib ah ma guursanin wiilka aan adeerkay ah ka bacdi ma guursanin sidii baan u joogaa hadaan dadkiina waxay dhahaan horay maxay u guursan weysay yacni mase wiilkii ayay weli jeceshahay waxaan hadda waxay tiri waxaan jiraa 21 sano dadka waxay leeyihiin ma wiilkii hore weli jeceshahay maxay u guursan laadahay anigana waxay dhahday hadda waxaan jiraa 21 sano wiil waxaa jira hadda xiriir aan leenahay oo dugsiga quraanka isla dhigan jirnay aad ii jecel ana aan jeclahay oo aan is dhihi karo waa qofkii ilaahay kuu soo diray naftaaduna ay raali ka tahay 100% laakiin dhibaatada i haysata waxay tahay markaan ka hadalno arrimo guur iyo waxa waan ka xanaaqaa oo guurka dhanba waan dhibsanayaa maba maqli karo asaga waa wiil aad u wanaagsan diin leh iyo ixtiraamo familkeyga ixtiraama jecel anigana jecel laakiin dhibaatada waxay tahay guurka waxaa igula talin lahayd abaayo qaali walaashii qaali horta fiiri guurka waxaa ku nacsiiyay ninkii kugu horeeyay oo kusoo maray adigoo yaraa lagu siiyay waxay kugu noqotay marka sadmo naxtinay kugu noqotay siduu kuu galay iyo inuu ku xumeeyay intuu qurbo ku geeyay ku xumeeyay haddana ku furay sababta kugu furin aan kuu sheegin marka waxay kula tahay marka nimanka oo dhan ay isku mid yihiin adi hadda waxa ay tiri waxaan ku joognaa 9 caruur ah walaalaha laba isku dabeecad ah oo isku dhaqan ah ma idin ku jiraa laba qofood oo markuu mid kula joogo
aad dareemaysa inuu midka kale kula joogo oo isku dhaqan ay yihiin 100% ma jirto bini'aadanka isku dhaqan ma aha isku fikir ma ahan hana adi ha uga quusanin rag oo dhan iyo guur oo dhan ninkii ku xumiyay isku mid ma ahan haddii si kale lagu hayo oo maalan guurka si kale lagugu diiday quraan isi saar ilaahay tawakkal raggan isku mid ma ahan naftaadani fursad labaad sii wiilka ku jecelna fursad labaad sii ninkii hore oo ku xumeeyay iyo noloshii hore ku soo martayna iska iloow waxaa ka soo qaadaa noloshaada wax aan la soo marin inkastoo waxyaabaha xanuunka badan si dhedheel aan lagu iloobeynin laakiin haddana adiga waxaa lagaa rabaa naftaada inaad saacidid oo naftaada adiga aad saacidid muxuu ah sidii jawigii xumaay oo kusoo maray aa uga bixi lahayd waxaasna waxaa kasoo qaadaa wax qayb aan noloshaada ka mid ahayn maxaa yeelay haddaa weligaa isku xirtid wixii lasoo dhaafay waxa soo socdo kama gudbi karaysid wixii kusoo dhaafay haddaa mar walba ku mashquulsanaatid oo mar walba aad ku fikirtid oo mar walba aad tiri hadda kahor asaas la yeelay waxaan waa ka cabsanaa waxa waye mustaqbalkan wuxuu ku dhaafaa cabsi iyo walwal mustaqbalkii kusoo dhaafay aa kasoo qaaday marka waxaan ku dhihi lahay is-iloosii inta is-iloosii kartid wiilkan ku jecelne fursad sii kana soo qaad inaadan nin hore uusan noloshaada soo marin asaga ma ahane asaga oo kaliya ku fikir naftaada ku fikir naftaadana fursad labaad sii wiilkaana fursad labaad sii wixii horene waxaa kasoo qaadaa halbacaad lagu lisay marka aabayaasha dhahayo waa in adeerkaa waxba kaama haleynayo asagaa laysku hubaa kuwaana qaata gabadhan siduu wiilkan u galay waxaana fiican ninka hadduu in adeer yahay ama in abti yahay meeshuu doona ha ka yimaado ninba hadduu gabar kaasoo doonto inaad geed adag iskaga xirtid oo gabadhaada xaqeeda meel aa ka saartid gabadha maaha in waqti laga cuno sanado laga cuno haddana sabab la-aan lagu furo ma ahan guurkane dhaqaale iyo in adeer iyo ma galo waxyaabahaas in layskugu roonaado guur ma galo guur waa mas-uuliyad waa mustaqbal laba qofood ka dhexeeyo caruura imaanayso nolol iyo mustaqbal rabaan marka ha ku fikirnina inuu guurka yahay in adeernimo iyo dhaqaale ninkii gabarkaasoo doonto geed adag iskaga xir asxaabtii sharafta leh qisadeeni inta ay ku egtahay walaashin intaasoo talaan siiyey haddii wax aan ka tagay iyo jiraan adiga soo dhammaystira intaa fiidiyooga mid lamid ku kulmeyno horta marka hore subscribe isaar like qurux badan isaar ina sii share garay aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam allahuma salli wasallim wabaarak calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam mac salaam asxaab sharafta leh